anigoo ku hadlaya dhammaan shacabweynaha reer Somaliland meel kastoo ay joogaan gaar ahaanna waxaa la yidhi daxalka geel ma wada xidhaan oo hadday wada xidhaan ma wada xijiyaan xagga hartiga naloo sii eegayo sideedaan u qaadanay qodobada waana ku faraxsanna horta shirka dambeynaya ma jiro oo Somaliland ka dhacaya waayo waxa weeye hawshiba waad soo ururiseen nin walba meeshii xoqaysay waa taabateen sidaasaanu shirweynaha Somaliland shacabkeedu ay ku wada qaadanayaan horta harti hadaan nahay waanu qaadanay waxa qodobada kamid ahaa waa dagalaadkii ugu horeeyana uu yiri saaba qaybsi buu yiri waxaan u malaynayaa siyaasad shirkan kuma bilaamin siyaasadna lama gelin laakiin kolley qodobada xukuumadana waxay u baahan tahay in guddi loo saaro oo xukuumaduna waa ogolaatay qodobada in 2020 doorashadu ay dhacayso madaxweynuhuna wuu sheegay arrinka saami qaybsigana waxaan u malaya Suudaan dhawilo halka fadhiyo oo beelaha galbeedka ah de kulli hadda dir baad noqoteeno de dir iyo harti baynu qaybsanaynaa dir iyo harti baynu qaybsanaynaa waayo waxa weey kulli dir iyo harti baynu qaybsanaynaayo de mar hadda dir noqoteen intii kale de waxaan u malaya hadii qaybsin ma tusaasun baynu qaybsanaynaa qoliyaha galbeedkuna hadalkooda halkaas uu ku soo ururay intaasaan kaga baxaya ta kale nabadgelyada hal la ilaaliyo waa loo baahan yahay waa muhiim weeye runtii nabadgelyo la'aan waxba ma suurtoobiso culimadii waa inoo warantay wacyiga ayna siisay ee diiniga ahana insha Allah ta'ala ilaahay inagu anfaco dawada dhashay baynu nahay nabadgelyadana inagoo dhan badan inoogu jirtaa tii koonfurtuna insha Allah way dhamaatay oo meel fiican bay ku dhamaatay tii ceelafweyn aan mar walba iimaanayna yana waxa weeye meel fiican bay ku dhamaatay inta yaree dhimanna diyaar baa u nahay wixii anaga xaqayaga ah waxa weeye inaanu ka qabanno guddiga loo saarayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ta kale ee buuraha ceergaabe agteeda ka jirtana de waxa la yiri amba feendiyo waxba hay farin taa idinka ayaa ku filan anana diyaar baanu dilana halkan waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka si fiican buu hadlay cali ninka la yiraahdo taliyaha qaybta booliiska gudoomiyaha gobolka Saraar buu ahaa runtii nin aad aan u soo wada shaqeynay oo nabadii la oran jiray xagga shisheeye bariga shisheeye colaad fara badan iyo dhib badan ka jirtay nin aad uga shaqeeyay buu ahaa maantana waxa weeye waa taliyaha qaybta booliiska mar saasaan u eegay haddana saasaan u eegayo warninku waana cali shicibna waad ku ogeyd haddana darajuusi taayo waa taliyaha qaybta booliiska taasi waxay cadeynaysaa qofka qiimaha leh waxa weeye marna tuuta loo gelinayo daraja la siinaya marna waxa weeye shacab baa laga dhigaya mar suldaan baa laga dhigaya ninka hala la shaqeeyo